Mr. President. Mr. Prime Minister. It's good to talk to you. And before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in Somaliland ay si rasmi ah ugu aqoonsadeen dal madax bannaan. ra-iisul wasaare Netanyahu, wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa kala saxiixday baaq wada jir oo labada dhinaca. ra-iisul wasaaraha Netanyahu ayaa hambalyo u diray madaxweynaha Somaliland waxaana ku ammaanay hogaamintiisa iyo sida ay uga go'an tahay horumarinta xasiloonida iyo nabadda. ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku casuumay madaxweynaha inuu booqasho rasmi ah ku tago Israel. madaxweynaha Somaliland ayaa uga mahad celiyay ra-iisul wasaare Netanyahu baaqiisa taariikhiga ah ee ugu dhawaaqay aqoonsiga Somaliland, waxaana uu muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin guulaha ra-iisul wasaaruhu ka gaaray la dagaalanka argagixisada, horumarinta nabadda ee gobolka. dowladda Israel ayaa qorsheynaysa inay si degdeg ah u ballaariso xiriirka ay la leedahay Somaliland, iyadoo iskaashi ballaaran ka sameynaysa dhinacyada beeraha, caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha.